warqadan ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cali Siciid Fiqi oo maanta Baydhabo soo gaaray ayaa waxaa lagu magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka aqalka sare oo ka kooban 12 xubnood. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Macalin ayaa warbaahinta u akhriyay magacaabista gudoomiyaha baarlamaanka uu soo saaray. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Maanta ay taariikhdu tahay 25 bishii 7 2021 golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wuxuu magacaabayaa guddiga doorashada ee xildhibaanada aqalka sare. Marka sidan ayaan warqadan u akhrinaa. Ujeedo magacaabid xubnaha xildhibaanada guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada aqalka sare. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu arkay baahida loo qabo guddiga hirgelinta qabashada doorashada aqalka sare. markuu arkay gudoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed markuu la tashaday madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu qiimeeyay aqoonta iyo khibradda xubnaha ay u leeyihiin arrimaha doorashada. Gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu xubnahaas hoos ku xusan u magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare. Lambar 1 xildhibaan Usmaan Buule Macalin. Lambar 2 xildhibaan Amina Isaaq Maxamed. Lambar 3 xildhibaan Ibrahim Macalin Cali. Lambar 4 xildhibaan Ibrahim Xaaji Xasan. Lambar 5 xildhibaan Qaasim Maxamed Abuukar. Lambar 6 xildhibaan Xareedo Ibrahim Xuseen. Lambar 7 xildhibaan Maxamuud Sheekh Maahi Yuusuf. Lambar 8 xildhibaan Abshir Diiriye Nuur. Lambar 9 xildhibaan Mukhtaar Maxamed Aadan. Lambar 10 xildhibaan Usmaan Nuur Aadan Fiile. 11 xildhibaan Cabdifataax Maxamed Ali Abrone. waxaa ku saxiixan gudoomiyaha golaha wakiilada Koonfur Galbeed Ambassador Dr. Ali Siciid Fiqi. Wabillahi tawfiiq. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa noqday maamulkii labaad ee magacaaba guddiga doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyadoo horey maamulka Jubbaland uu u soo magacaabay guddiga doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare.